Ku dhawaad 7 sano gudaheeda ayaa waxaa isla qabay 2 nin oo Soomaaliyeed. Waxa ayna labaduba ku qabeen magaalada Muqdisho. Haddaba sidee ayay dhagartan ugu suurta gashay gabadhan Soomaaliyeed? Waa qisada marka looga sheekeeyo qof kasta oo Soomaaliyeed argagax iyo naxdin ku abuurtay kadib markii qof walba uu la yaabay qaabka ay gabadhan dhagartan u maleegtay una soo abaabushay qorshaheeda cajiibka ah una ugu hirgalay muddo ku siban 7 sanadood. Haddaba daawadayaal, inta aan qisadan u gudagelin, fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu faafo una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed. Sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya. Da'deedu waxay ahayd 18 sano oo kaliya markii ay ka qalin jabiday iskuulka sare ee waxbarashadeeda. Haddaba gabadhan Soomaaliyeed oo ku noolayd magaalada Muqdisho, khaasatan xaafadda Waaberi, waxay leedahay qiso naxdin iyo argagax leh, taas oo qof kasta oo looga sheekeeyay ama kaag iyo walwal fara badan ku abuurtay. Haddaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa inta ay dhiganaysay iskuulkeeda waxa uu ahaa saabo kala dhexeeya wiil Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Hanad. Waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah kaas oo isaga qudhiisu la dhigtay iskuulka ay dhiganaysay. Haddaba Hanad iyo Farxiyo waxaa dhex maray jacayl muddo fara badan soo socday, waxayna ahaayeen 2 qof oo si weyn isugu dhawaa muddo ku siman 2 sanadood oo uu socday xiriirkoodu. Waxayna qorsheynayeen in maalin maalmaha ka mid ay wada dhistaan mustaqbal kadib markii ay isku qaadeen jacayl xad dhaaf ah. Waxayna caqabada weyn u arkayeen iskuulka ay dhigtaan, marka ay dhameeyaanna waxa ay doonayeen inay aqal galaan. Haddaba daawadayaal, arrinta argagaxa leh ee dhacday ayaa waxa ay ahayd in markii ay dhamaysay Farxiyo iskuulka sare, waabaheed u sheegay arrin iyada qudheeda ama kaag iyo naxdin ku abuurtay. Waana markii uu sheegay in uu jiro nin uu qorsheeyay kaas oo ku nool dalka dibadiisa, khaasatan waddanka Sweden. Haddaba ninkii ayaa ka yimaaday waddankaasi, waxa uuna isla waqtigaasi joogay magaalada Muqdisho. Ninkan oo ay qaraabo dhow ahaayeen aabbaha dhalay Farxiyo ayaa doonayay gabadhan inuu la aqal galo uu mehersado. Waxa uuna soo wacay aabbihii una sheegay inuu rabo gabar inuu guursado. Haddaba aabbihiis oo ku noolaa magaalada Muqdisho ayaa u tagay Farxiyo aabaheed, waxaana u sheegay inuu ka rabo gabar. Waa uu ka ballan qaaday gabadhii, waxaana u sheegay markay iskuulka dhamaysato inuu ku dari doono wiilkiisa. Haddaba ugu dambeyn ninkii ayaa yimaaday, Farxiyana waxaa loo sheegay in la guursan doono dhowaan. Arrintii walwalka iyo naxdinta lahayd waxa ay ku wargeliday saaxiibkeed, waxayna ku noqotay qaracan iyo layaab. Xal walba way isku dayeen, wayna awoodi kari waayeen. Gabadhani waxay u sheegtay aabaheed inay leedahay jacayl, hase yeeshee midaasi ma uusan ka aqbalin. Haddaba daawadayaal, ugu dambeyn waxaa si qoorqabada ama qasab ah loogu daray Farxiyo ninkii ka imaaday waddanka Sweden. Waxa uuna meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Aroos iyo alalaas badan ayaa loo tumay, wayna aqal galeen ugu dambeyn. Haddaba markii ay sidaasi dhacday, waxa uu ninkani joogay muddo ku siman 2 bilood, kadibna waxa uu ku laabtay halkii uu ka yimaaday. Haddaba Farxiyo iyo wiilkii hore way wada xiriiri jireen, waxa ayna mar walba walwal ka muujin jireen nasiib xumadooda iyo sida calafka uga hiileeyay. Marka buusan jirin wax qorshe ah, hase yeeshee markii uu ninkii dhaqaaqay kana tegay Soomaaliya, waxa ay maalin casuumaad u sameeyay wiilkii saaxiibkeeda ahaa, waxaana ugu yimaaday gurigii. Hase yeeshee markay indhaha is saareen iskuna imaadeen, waxaa dib u dabqaday boogihii hore, waxayna dareemeen galgacaylkii iyo jacaylkii faraha badnaa ee isku qabeen. Waxaana halkaasi ka bilaabatay dhagar cajiib ah, taas oo loo dhigayo ninkii guursaday gabadhan, kaas oo markii hore si xoog ah kula wareegay. Haddaba hadallo badan oo la isdhaafsaday iyo tala soo jeedin kadib, waxay Farxiyo u sheegtay in ninkeedu uu maqnaan doono muddo bilooyin ah. Haddaba arrin la yaab leh ayay qorsheeyeen, taas oo ah iyada iyo wiilkii uu jacaylku ka dhaxan jiray in ay hal meel ku wada noolaadaan ama hal guri. Haddaba Farxiyo ayaa u sheegtay wiilkan in aysan marnaba suurtagal ahayn in guriga ay ku nooshahay uu kula noolaado, maadaama reeraha deriska la ah iyo dhowr qof oo qaraabo la ahaa ay yaqaanaan ninka qabo. Haddii isaga meesha lagu arkana uu tuhun ka dhalan doono. Haddaba ugu dambeyn waxaa la qorsheeyay in Farxiyo halkaasi soo guurto iyadoo abuurayso sababo deegaan xumo ah. Waxa ay qorsheeyeen in ay degaan xaafad kale oo ku taala magaalada Muqdisho. Halkaasi waa meesha ay ka bilaabanayso dhagartu, waana meesha ay Farxiyo ninkeedii oo maqan nin kale uu la aqal galayo, habeen kastana uu guriga la seexanayo, ayna sidii inuu yahay sawjkeedii badar u karinayso, marwana ay u noqonayso. Subxaanallah. Waxaa socday
dhaqankoodii iyo inay si wacan isku dhex galaan. Haddaba ugu dambeyn Farxiyo ninkii qabay ee ku maqnaa waddanka Sweden ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Haddaba mar kale waxa ay qorsheyday Farxiyo in halkaasi ay ka rarto reerkeedii ayna dejiso xaafad kale oo magaalada Muqdisho ku taalo. Waxa uuna ahaa qorshaha ay midaasi ka damacsanayd in aan dadkii dariska kulaha halka ee ku arkay wiilkii uu jacaylku kala dhaxeeyay markay arkaan ninkan cusub ee dibadda ka imaaday in aysan la yaabin ama uusan shaki ku abuurmin. Sidaa darteedna waxa ay qorsheyday in ay mar kale guurto. Haddaba ninkii waa uu yimaaday, waa uu la dhaqmay sidii oo kale ayuuna ayaan la joogay. Haddaba ugu dambeyn sheekadan deegaan bedelashada ah waxay socotay muddo aad u fara badan, waxayna Farxiyo dhashay ku dhawaad 4 caruur ah. 7 sano ayaa la joogaa, arrintiina weli sidii ayay u socotaa. Marka uu ninkani baxo, ninkan kale ayaa Farxiyo sii qabayo. 2 bilood uu joogana isaga ayaa qabayo. Arrinta ugu weyn oo ninkan qurbaha ku maqan lagu haystana waxa ay ahayd in uu reerkan biili jiray, wax walba oo loo baahdana isaga laga heli jiray. Haddaba ugu dambeyn xaqii ayaa dilaacay, waxaana la gaaray xilligii sida rasmiga ah loo ogaan lahaa dhagartan ay muddo 7 sano ah soo waday Farxiyo iyo ninkii jacaylka uu kala dhaxeeyay. Haddaba wiil saaxiib la ahaa wiilkan ayaa maalin maalmaha kamid ay si fiican u sheekaysteen. Waxa uuna uga sheekeeyay qisadiisa in ay jirto gabar uu ka tagay ninkeeda, taasoo ay wadaagaan gogol dhaaf ama uu 7 sano xoolo ay nin kale ka soo qaado iska cuno, gurigiisana iska tago, iskana baashaalo. Haddaba wiilkii arrintii wax weyn lama aysan ahayn, waxayna ahaayeen dad dhalinyaro ah oo waxaasi u arkay inay yihiin wax caadi ah. Haddaba ugu dambeyn waxaa dhacday arrin la yaab iyo argagax leh kadib markii wiilkani uu geeyay saaxiibkii gurigii gabadha, dhowr jeerna ay ka soo cunteeyeen, habeenna qaarna ay soo wada seexdeen iyaga oo halkaasi ku damaashaadaya. Haddaba waxaa dib u soo laabtay ninkii qurbaha ka maqnaa, waxa uuna maalin maalmaha kamid ah casuumay dhalinyaradii ehelka ahayd ee ku nooleed magaalada Muqdisho. Waxaana u sheegay inay xaafadiisa imaadaan. Waxa dhalinyarada ehelka ah kamid ah ninka saaxiibka la ah wiilkii uu jacaylku kala dhaxeeyay Farxiyo. Waxa uuna sida uu sii socday tagay gurigii Farxiyo oo marwo u ah ninkan. Waxa uu su'aal hoosaad weydiiyay, gabadhaniyay tahay? Waxaa loo sheegay in adeerkii uu qabo. Naxdin iyo amakaag ay ku ahayd, wax uu ku hadla ayuu garan waayay. Haddaba waa uu soo baxay, wax badan uu labalabeeyo. Waxa ugu dambeyn u tagay adeerkii, maadaama uu ahaa adeerkii qofka gacanta ku hayo ka bixiya jaamacaddii uu ka dhigan jiray magaalada Muqdisho soona biilo. Waa uu qarsan waayay dhagartan lagu hayo, taas uu saaxiibkiisii maleegayo. Waxauna u tagay adeerkii, kadibna waxa uu sheegay dhagarta lagu hayo waxay ahayd arrin amakaag iyo naxdin leh. Adeerkiina waa uu qaadan kari waayay, maadaama reerkan uu muddo u dhisnaa, caruur loo hayo, meel uu ka laabtana aysan jirin. Waxa uu yiri ma rumaysan kara midda. Haddaba waa inaad ii xaqiijidaa. Si arrintaasi loo xaqiijiyo, waxa la abaabulay bixitaan ah in ninkii Sweden uu ku laabanayo. Haddaba gabadhii sida caadada u ahayd waxay u sheegtay wiilkii in ninkeedii uu laabto, sidaa darteedna uu xaafadda iminka soo seexan karo xilli habeen ah. Qaraabadii labada qoys oo wada socdo, gabadha qaraabadeedii iyo qaraabadii ninka ayaa hal mar oo qura waxay ilida ka galeen gurigaasi. Haddaba ugu dambeyn ninkii waa la soo qabtay, arrintanina ilaa iyo hadda xalkeedii waa uu taagan yahay. Haddaba caruurta yaa dhalay? Ma waxaa dhalay ninkan Sweden ka imaaday, mise waxaa dhalay ninkan uu jacaylka gabadha kala dhaxeeyay ee la seexan jiray? Waa arrin walwal leh, ilaa iyo haddana garteedii aan meelna lagu xalin. Haddaba waxa ay kula tahay nagula soo wadaag qaybta commentiga fikirkaaga. Mahadsanidin.